kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal halkani waa Mahuraan Radio fadlan hadii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar si aad u hesho warar xiiso leh oo degdeg ah qodobada wararka aan idin hayno daawadayaal maantana waxa kamid ah dab khasaare geysay oo ka kacay degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe dhimasho iyo dhaawac ka dhashay banaanbaxyaal lagu rasaasiyay magaalada Jigjiga ee dowladda deegaanka Soomaalida dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku dhawaaqday in ay kharameynayso maleeshiyaadka macawisleyda todoba qodob oo laga soo saaray xalka gaarida colaad wanahan ka taagneyd gobolka Mudug xildhibaanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya oo iyagu magdhow ka dalbaday dowladdaasi qodobada kale aad Mahuraan Radio ku dhageysan doontaan wararkiisa waxa kamid ah go'aankii maxkamadda kiiska Jamal Khashoggi oo la cambaariyay qodobadaas oo faahfaahsan ayaad dhawaan maqli doontaan dhageystayaal fadlan hadii aad ka cusub tahay channelka Mahuraan Radio subscribe saar si aad u hesho wararka xiga markana qodobadii wararka oo faahfaahsan markana aynu ku horeynay wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay ku waramayaan in xalay saqdhexe saacadu markii ay ku beegneed labadii habeenimo mar qura la isugu soo baxay dabka kacay dhismo ganacsi oo ku yaala degmada Jowhar dhismahan ganacsi oo ka koobnaa ilaa iyo 3 ganacsi oo kala ah baqaar lagu iibiyo qalabka dhismaha dukaan iyo laba farmashi iyadoona uu khasaaro badan u geysay dabkani ganacsiyadaasi kala duwan waxaana dabkan loo badanayaa inuu ka dhashay koronto Maxamed Rooble Nuur Cabduqaadir Cali Tumey iyo ganacsade magaciisa lagu soo koobay Shariife iyo Cabbaas Maxamed Xasan oo dhamaantood baa milkiilayaasha xarumahan gubtay ayaanan ilaa iyo haatan shaacin tirakoobka khasaaraha hantiyadeed ee ka dhashay dabkaasi sidaan oo kale marar dhowr ah ayuu dab ka kacay xarumo ganacsi oo ku yaala degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe dhanka kale hoggaanka sare ee xafiiska nabadgelyada dowladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa ay ka hadleen banaanbaxyo xooggan oo ka dhacay magaalada Jigjiga ee xarunta dowladda deegaanka Soomaalida kaas oo ay dhigayeen shacabka ku nool magaaladaasi iyada oo ay uga soo horjeedeen masaajidyo halkaasi lagu gubay Cabdi Caadil Xasan Cabdi oo ah hogaamiyaha hoggaanka nabadgelyada dowladda deegaanka ayaa waxa uu sheegay in banaanbaxyada ay u dhaceen si nabadgelyo ah isla markaana bulshadu ay soo jeediyeen sida ay uga xun yihiin masaajidda lagu gubay deegaanada Amxarada waxa uu intaas ku daray in dadka qaar ay isku dayeen in ay gubaan laba kaniisadood oo ku yaala magaalada Jigjiga waxyeelana u geystaan goobo ganacsi balse ciidamada gaarka ah ay ka hortageen rasaasna ay ku fureen una adeegsadeen qiiqa dadka ka ilmeysiiya sidoo kale waxa uu sheegay in banaanbaxyadaas uu ku dhintay hal ruux laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaas oo dhammaantood ahaa dadkii dhigayay dibadbaxyadaasi wagaag dhageystayaal weli waxaad la socotaan wararka Mahuraan Radio markana gobolka Shabeellaha Dhexe mar kale aynu dib ugu soo laabano taliye ku-xigeenka ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya Sariya Guud Maxamed Cali Bariise ayaa waxa uu tuulada Xaaji Cali ee gobolka Shabeellaha Dhexe kula hadlay dhalinyarada macawisleyda ee ka dagaalama deegaanada ka kala tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan taliyaha oo ay garab istaagsanayeen saraakiil kale ayaa waxa uu shaaciyay isla markaana sheegay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay garab taagnaan doonto dhalinyaradan macawisleyda la magac baxday isla markaana iyagu la qarameyn doono waxa uu isagu ku amray taliska qaybta 27aad ee ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya in ay garab istaagaan dhalinyarada macawisleyda ilaa iyo inta ay dowladda Soomaaliya ay ka diyaarinayso qorshaha lagu qarameynayo maleeshiyaadkan macawisleyda ee iyagu ka dagaalamo deegaano ka tirsan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan dhanka kale mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabad lagu dhameystiriyay heshiisyadii ay horey u gaareen beelihii ku dagaalamay deegaanka Tawfiiq iyo Afbarwaaqo ee bariga gobolka Mudug kulan ka dhacay degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug ayaa waxa laga soo saaray qodobo lagu xoojinayo heshiiskii horey ay u dhaxmaray odayaasha labada beelood ee deegaanka Tawfiiq iyo Afbarwaaqo waxaana kamid ah qodobada heshiiskaas lagu xusay kow in la fuliyo dhammaan qodobada ku xusan heshiiskii ay wada saxiixdeen beelaha colaadu ay dhaxmartay ee kala ah beesha Sleemaan Cabdalle iyo beesha reer Nimcaale ee ku taariikhsanayd 18 December ee sanadkan 2019 ee ka dhacay Afbarwaaqo labo gudiga waa inuu doortaa shir gudoon waana inuu qaab dhismeedkiisu dhameystiraa muddada 4 beri ah ee uu shirkan socdo dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxa laga rabaa in ay tayeyso gudiga
isku dhafka ah si ay u dardargeliyaan nabadgelyada iyo dhab u heshiisiinta beelaha. 3 in wadahadalku sii socdo. 4 in wadahadal lagu dhameeyo xal waarana laga gaaro wixii dhib ah oo aan laga samri karin laguna lafaguro shirarka soo socda. 5 in guddiga isku dhafka ah ee odayaasha labada beelood gacan siiyaan ciidamada dowladda federaalka si ay u fuliyaan heshiisyada nabadeed. 6 in odaygii u hoggaansami waayo heshiisyada nabadda ay ciidamada dowladda tilaabo adag ay ka qaadi doonaan. 7 in gogosha tan xigta la dhigo magaalada Gaalkacyo 5 bisha Febraayo ee 2020 ayna fududeyso dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu soo gabagabeeyay heshiisyadan 7 ah ee laga gaaray khilaafka beelaha dega gobolkaasi Mudug ee dhawanahan colaadu ay ku dhaxmartay deegaano ka tirsan gobolkaasi. weli dhageystayaal waxaad la socotaan wararka Mahuraan Radio markana waxaa isa soo taraya cabashada shacabka iyo maamulka gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ay ka qabaan gaadiid badeeco siday oo la sheegay in dhawaan ay gubeen ciidamada militariga ee dowladda Kenya. Maxamed Daahir Ducaale oo kamid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolkaas ayaa waxa uu sheegay in goobta falkaas uu ka dhacay ay dhawaan gaareen isaga iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan ismaamulka. xildhibaankan ayaa waxa uu warbaahinta ula wadaagay in hantida la gubay ee gaadiidkaasi uu siday ay gaarayso $100,000 Mareykanka isagoo oo dowladda Kenya ka dalbaday in ay magdhow ka bixiso falkaasi ay ku kaceen ciidamadeeda. xildhibaankan oo laga soo doortay deegaanka Dhadhaab oo ah halka lagu gubay gaadiidkan rakaabka ayaa sheegay in ciidanka gaarka ah ee la dagaalanka argagixisada ee Kenya u arkaan kuwa iyaga argagax ku ah maadaama ay dhibaato joogto ah ku hayaan sida uu sheegay shacabka ku nool gobolka Soomaalida ee dalkaasi Kenya. wagaag dhageystayaal halkaad warkaas kala socotaan waa Mahuraan Radio markana go'aanka maxkamadda Sacuudiga ay uga bariyeeshay kaaliye sare oo u dhow dhaxasugaha Sacuudiga Mohammed bin Salman in uusan ku lug lahayn dilkii Jamal Khashoggi ayaa waxa ay la kulantay cambaareyn caalami ah ayada oo lagu qeexay ka been sheegida cadaaladeed balse helay taageerada Mareykanka. 5 qof oo aan magacooda la shaacin ayaa isniintii dil loogu xukumay dilkii wariye Jamal Khashoggi halka 3 kalena lagu riday xukumo xabsi ah oo marka la isku geeyo gaaraya 24 sano. sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa go'aankan ku qeexday talaabo muhiim ah oo lagu la xisaabtamayo kuwii ka dambeeyay dilkaasi. waxaan ku cadaadinayaa daahfurnaanta intaan in ka badan iyo in ay qof walba la xisaabtamaan ayuu yiri sarkaalkan. hase yeeshee go'aanka maxkamadda ayaa waxaa dhaleeceeyay Turkiga oo ku qeexay natiijo fadeexada oo bari yeeshay oo kuwii soo diray dambiilayaasha oo uu ula jeeday Mohammed bin Salman. xukuumadda Riyadh ayaa iyadu ku qeexday dilka Khashoggi in uu ahaa howlgal falaago ah oo dhaxal sugaha uusan wax kaalin ah ku lahayn. hase yeeshee CIA-da Mareykanka iyo ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay Angus Calamardi ayaa waxa uu toos ula xiriirinayaa Mohammed bin Salman dilkan eedeyntaas oo si daran ay u beeniyeen boqortooyada. Angus Calamardi ayaa sidoo kale go'aanka maxkamadeynta ku qeexay mid aan u dhaweyn cadaalad u helidda kiiska Jamal Khashoggi. guud ahaan dhageystayaal wararkii aad kala socoteen warbaahinta Mahuraan Radio waanaga inta warkan kiisa xigeenteeno dib hawada ugu kulmi doono waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo amaana Allah.